dunida ayaa wajahaysa xaalad siyaasadeed oo aad u kacsan kadib markii Shiinaha uu si adag u dhaleeceeyay howlgalka military ee Mareykanku ka fuliyay Venezuela. duulaankaas oo lagu soo qabtay madaxweynihii waddanka Nicolas Maduro iyo xaaskiisa ayaa si degdeg ah u bedelay jihada xasiloonida gobolka Latin America. digniinta Shiinaha maxay ka dhigan tahay? suuragal ma tahay in Shiinuhu qaado tallaabo military oo uu ku difaacayo bahwadaagtiisa gobolka? Washington maxay ka yeelaysaa baaqan lahjada adag ku qoran ee ka soo baxay Beijing? xiisadda gobolka ka oogan ma u eg tahay inay u xuubsiibanayso mid caalami ah oo u dhaxaysa quwadaha adduunka iyadoo lagu darayo goodintii Ruushka? su'aalahaas iyo kuwa kale ayay ka jawaabaysaa tabintan Tafaftir Media ee soo dhawaada. bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Shiinaha ayaa lagu sheegay in Beijing ay si weyn uga walaacsan tahay tallaabada military ee uu Mareykanku ka fuliyay dalka Venezuela, isla markaana ay u aragto xadgudub qaawan oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah, ahdiga qaramada midoobay iyo mabaadi'da aasaaska u ah madax bannaanida dawladaha adduunka. Shiinaha ayaa si cad u dalbaday in Nicolas Maduro iyo xaaskiisa si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo soo sii daayo, isla markaana Mareykanku joojiyo tallaabooyinka sida xoogga ah loogu ridayo dawladda jira. laakiin waxa arrintani ka dhigaya mid aad u khatar badan ma aha oo kaliya qabashada Maduro, balse waa waqtiga ay ku soo beegantay. sida ay xaqiijinayaan warar iyo falanqeeyayaal caalami ah, ergey sare oo Shiinaha ah ayaa ku sugnaa magaalada Caracas isaga oo kulan toos ah la yeeshay Nicolas Maduro saacado yar uun ka hor inta uusan dhicin weerarka Mareykanka. haddii xogtan la xaqiijiyo waxay dhalinaysaa su'aal culus oo caalami ah. ma suuragal baa in mas'uuliyiinta Shiinaha ay ku dhawaadeen goobta ama inay si dirqi ah uga badbaadeen howlgalka military ee Mareykanka? arrintaas waa mid Beijing u aragto khad cas oo si toos ah u taabanaya amniga iyo sharafta diblomaasiyadeed ee Shiinaha. dhinaca Shiinahana arrintan looma arko mid ku kooban Venezuela oo kaliya, waxay u arkaan tusaale khatar ah oo muujinaya sida Mareykanku mar kale ugu laabanayo isticmaalka awood hal dhinac ah isaga oo iska indhatiraya hay'adaha caalamiga ah iyo shuruucda dunida. Beijing waxay si cad uga digtay in tallaabooyinkan ay furi karaan albaab cusub oo xasilooni darro ah kana sii gudbi kara Latin America, isla markaana saameyn ku yeelan kara Asia, Afrika iyo Bariga Dhexe. mid ka mid ah waxyaabaha sida weyn loo hadalhayo ayaa ah dib u soo noolaynta siyaasad taariikhi ah oo Mareykanku uu ku sheegan jiray in Latin America ay tahay deegaan u dihan dalkiisa. mas'uuliyiin Mareykan ah ayaa si cad u sheegay in hoggaanka Mareykanka ee galbeedka qaaradda aan mar dambe su'aal la gelin doonin. hadalkaas waxa uu si toos ah u muujinayaa in Mareykanka uu doonayo inuu si buuxda u xaqiijiyo awoodda military, dhaqaale iyo siyaasadeed ee gobolka. tallaabadaas oo Shiinuhu u arko mid khatar ku ah nidaamka caalamiga ah iyo danihiisa. arrinta kale ee xasaasiga ah waa kaydka shidaalka ama saliidda. Shiinaha waa iibsadaha ugu weyn ee saliidda Venezuela isaga oo malaayiin fuusta ah soo dhoofsada, isla markaana maalgashi ballaaran ku sameeyay kaabayaasha tamarta ee dalkaas. inkasta oo shidaalka Venezuela aysan boqolkiiba wax weyn ka ahayn wadarta saliidda Shiinaha, haddana Beijing waxay u aragtaa Venezuela saaxiib istiraatiiji ah, tiir muhiim u ah koonfurta adduunka iyo meel uu Shiinuhu ku ballaariyo saameyntiisa caalamiga ah. taasi waa sababta ay arrintani uga caraysiisay Beijing si ka duwan dhacdooyinkii hore. dhanka kale, gudaha Mareykanka sawir kale ayaa ka muuqda. hoggaanka sare ee Washington ayaa howlgal ku tilmaamay mid taariikhi ah, isla markaana si weyn u amaanay ciidanka Mareykanka waxa ay sheegeen inay fuliyeen, iyada oo uu Trump ku jeesjeesay inuusan jirin dal kale oo dunida ku yaala oo howlgal sidaas oo kale ah fulin kara. ciidamada Mareykanka waxa lagu tilmaamay kuwa ugu awoodda badan, xirfadda sareeya, isla markaana aysan jirin cid la barbar dhigi karo. hadalladii ugu adkaa ayaa si cad loogu diray cid kasta oo Mareykanka ka soo horjeeda oo Shiinuhu ku jiro. waxa lagu adkeeyay in madaxweyne Trump ay si buuxda uga go'an tahay joojinta burcadnimada, la dagaalanka daroogada, soo celinta khayraadka iyo dib u dhiska cabsigelinta Mareykanka. intaas oo dhan oo ah lahjada isku difaacaysa Washington. hadalka ayaa lagu soo xiray erayo si weyn loo yaqaano oo ay ka mid tahay America First. Mareykanka ayaa hortabinta leh. taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in howlgalka loo bixiyay Operation Absolute Resolve lagu fuliyay saacadaha ugu mugdisan habeenkii, isla markaana lagu diyaarinayay bilo badan. howlgalka waxaa ka qayb galay ciidamada dhulka, cirka, badda iyo sirdoon caalami ah. waxaa la adeegsaday in ka badan 150 diyaaradood, kuwaas oo si isku duuban u galay magaalada Caracas. si kastaba ha ahaatee, howlgalkan ayaa furay bog cusub oo khatar ah oo ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha, wuxuuna dib u qaabeeyay miisaanka awoodda ee Latin America. su'aasha ugu weyn ee maanta taagan ayaa ah, dunidu ma u sii jeedaa xilli awood lagu xalliyo khilaafaadka, mise wadaxaajood ayaa dib loogu noqon doonaa? jawaabta su'aashaas ayaana go'aamin doonta jihada siyaasadda caalamka sanadaha soo aadan.
tabinteennii Tifaftir Media intaas ayay ku dhan tahay waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad ku xirnaataan barteennan intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan